waxaanu yeeri doonaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo imika in arrimaha wasaaradda qaybta arrimaha dastuurka ay cusub tahay wasiirkuna intii uu joogay uu ka howlgalay sidii uu bari iyo galbeedba u gaadhsiin lahaa maxay isla marhaantaasina wacyigelino dastuurka ku saabsan uu sameyn lahaa soo dhow baan leeyahay wasiir maxamed xaaji aadan cilmi soo dhow baan leeyahay wasiir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ويراه قبسنها عاوي هذا العود كي تسوق قرتين واسكر عليه أهم دونتان إن شاء الله بنا كريم وحنو إلهي بينو قم هاد عدنينا نمعوين كأن ترين كرن ونوجو من يستي وحنو يتسنينا إنه نوسي سياديو وحن كلام هاد علنا يا يراد قروح البدن هو كمان يصور كالصدرة inoo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan ee aaya ka tashiga inaynu caawa halkan isugu nimaadno waxaan ku faraxsanahay inay tahay markii labaad ee aan runtii ka soo qayb galo kulan uu sameeyay ururka Sodra anigoo ka soo qayb galay maalintii xilka ay la kala wareegayeen gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha hadda waxaan u mahad celinayaa saddexda gudoomiye la kala wareegay xilka Axmed Shaqaale ugu horeeyo Cabdi Fataax iyo gudoomiyaha hadda Chief Caaqil Khadar Cabdi Khadar dhamaantood baan mahad celinayaa waxaana runtii mudan oo ay tusaale u yihiin qurux badan hab dhaqanka ay runtii ururku intii uu jiray u dhaqmayeen dhalinyarada Somaliland isdhexgalkeeda iyo midnimadeeda iyo walaalnimadeeda iyo wada socodkoodu waxqabadkooda mid barbar socda buu ahaa oo lagu dayan karo wax weyn qarankan iyo ummadan runtii oo ah tan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan noo soo jeedinayaa dhammaan dhalinyarada Somaliland inay ku dayato inay wadada quruxda badan raacdo oo runtii ah mid wax ku oola aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxa muuqata runtii inay buuxiyeen position ka banaana qaranka oo ay runtii kaalin lixaad leh ay ka qaateen maadaama tirada kunka iyo dheeraadka dhalinyarada ay jaamacadaha u suurta geliyeen inay maxaan dhahay dhameystaan barkoodna ay shaqo galaan maanta mas'uuliyiin qaran ay yihiin arrimahaasi waxay tilmaamaysaa inuu qofku wax qaban karo hindisaha wanaagsan inuu guuleysan karo in horumarku iyo wada tashiga iyo gacmis qabsigu ay yihiin waxyaabaha guulaha lagu gaadho tusaale yar oo kooban oo wada garanaysaan haddii aan idin xasuusiyo waddanka Malaysia la yiraahdo waxa la yiraahdo 1980kii wuxuu ahaa wadamada adduunka ugu faqiirsan ee ugu magac liita buu ahaa waxa weeyaan dadkiisu boqolkiiba 750 baa ka hooseeyay taxta sifir xagga faqriga iyo maxaa dhahay saboolnimada nin kaliya buu Ilaahay u soo diray Maxamed Mahdayir ama oo hogaamiyaha taqaaniin maantana wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu horeeya buu ka mid yahay waxa lagu qiyaasaa waqtigan ay dhimika joogno dadkiisa saboolka ah waa boqolkiiba 3 horumarka inta leeg waa hindise shakhsi ka yimi ummadiina ku hogaamiyay markaana ummadii ay hareeraha la qabatay oo dhinac ay wada jahaysatay waxaan u baahanahay inagu mucaarad iyo muxaafidba ma lihin markaanu ka hadlayno arrimaha heer qaran inaynu aad u fahanno waxa inaga dhaxeeya iyo waxa siyaasad ahaan dadka u dhaxeeya way kala duwan yihiin waxa qarannimadii aynu ka midaysanahay hadday boqolkiiba 97 tahay haddaynu saddex fikirka siyaasiga ah lagu kala duwan yahay 97 inaynu mid ka ahaano baa loo baahan yahay oo iska kaashano ku wada shaqeyno oo aynu sidaa u fahanno waxaan u maleynayaa halhayskaasi wuxuu ahaa baarlamaanka Masar ayuu soo jeediyay maxaa dhahay nin kamid ahaa xildhibaanadii yiri baarlamaanka Masar wuxuu ku wada socday iyo wuxuu ku kala duwan yahay wuxuu ku wada socdaa waa badan waxaan ku wada soconno baa badan inaynu ka midho dhalino oo mid ka ahaano taana runtii ummadeena waan u soo jeedinayaa iyo dhammaanba xisbiyada oo waxa weeye dee mid baynu nahay jidhku ma kala go'o haddii ay fare ku xanuunayso jidhkoo dhan baa ku xanuunaya qarankani waa mid marka inuu midnimadiisa iyo meel wada jeesigiisa aynu ka shaqeyno waa loo baahan yahay
intaa waxaan kaga gudbayaa haddaynu eegno xukuumadda iminka jirta iyo tii ka horreysayba iyadoo hadalka la yidhi runtii dhallinyarada doorka ay ku leedahay xukuumadda madaxweyne muuse bixi intiinaniba waa ka war haysaan hadalladiisii iyo khudbadihiisii iyo siyaasaddiisa uu ka dhabeeyey kow dhallinyarada wasiirada ah iyo agaasimayaasha maanta waxa ugu badan dhallinyaro laba dhallinyaradii scholarshipka aynu helay sanadkan 400 bay ahaayeen 400 si cadaalad ah ayaa gobolada Soomaaliland oo dhan looga soo xulay sida uu ogtihiin oo imtixaan gaara ku galeen 400 ee helay nasiibka u helay dhammaantood waa markii ugu horreysay ay sidaas oo kale u dhacdo waa markii ugu horreysay dhalinyaro inta leego wasiirro iyo agaasimaha ay dhalinyaro noqdaan waxa ku xigtay runtii dhalinyarada maanta gobolada oo dhan laga shaqaaleysiiyay ee uu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo ah nin da'yar tusaalena u ah hogaaminta dhalinyarada intii uu xilka hayay kala duwan aad iyo aad baa runtii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu diirsaday inuu fuliyo siyaasadii xukuumaddu ay lahayd iyo madaxweynuhu sidaasina waa mid runtii ku timi himilada iyo hanka ay xukuumaddu la timi